kusoo dhawaada janalka Nefka Media. Fadlan haddaan ugu subscribe, like, gamalak fursi kusoo gaaro muuqaal baan soo gelino. Wiil yar ayaa waxa uu soo galay dukaan timajare. Kadibna ninkii timajaraha ahaa ayaa waa uu hadal hoos ah ama dhigta ugu sheegay mid ka mid ah macaamiisha ee uu tinta iibjiray. Wiilkan hadda soo galay dukaanka waa dogon aan waabogeyn. Hadda ayaan ku tusayaa inuu dogon yahay. Kadib ninkii timajaraha ahaa ayaa waxa uu gacanta midig ku qabtay $1 halka gacanta kalena uu qabtay shilimaan yaryar oo gaaraya $50. Kadib ayaa wiilkii yaraa u yeeray waxa uu dhahay midkee ayaa rabtaa miina $1 mise shilimada $50 ah. Wiilkii ayaa qaatay shilimadii $50 ah waana uu bahay. Timajarihi ayaa ku dhahay ninkii macaamilkiisa ahaa isagu ma u jeedid inuu wiilkan doqon yahay. Markii ninka kale timaha loo dhameeyay ayuu binaanka u soo baxay. Kadib wuxuu arkay wiilkii yaraa oo jalaato dhuugaya oo iska faraxsan. Kadib ayuu weydiiyey sababta uu qaadan waayay $1. Wiilkii ayaa ugu jawaabay haddaan qaato $1 dheesha way dhammaanaysaa. Oo waa uu fahmaya inaan agli leeyahay marka waa isdabaalinaya.